markay aragtay qoraalka rafcaanka ay usoo qaateen maxkamadda rafcaanlayaasha, markay maxkamaddu aragtay jawaab celinta ay ka bixisay xafiiska xeeraalinta rafcaanlayaasha, markay aragtay maxkamaddu xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal sumadiisu tahay MDK Ga'na 963/2019 ee ku taariikhaysan 12 bishii shanaad 2019, markay dhageysatay dood afeedda rafcaanlayaasha iyo jawaab afeedda uu ka bixiyey xeeraalinta, markay maxkamaddu aragtay dhammaan qoraalada ku jira galdacwadeedka, markay maxkamaddu akhrisay warqadda dhaawac muujinta ee laga qoray marxuumadda ee ku taariikhaysan 25kii bishii labaad 2019, maxkamaddu markay akhrisay buugga laga diyaariyey samballadii DNA-ga ee dhibanada marxuumad Caaisha Ilyaas Aadan iyo rafcaanlayaashaba, maxkamaddu markay aragtay caddaynta dheeraadka ee uu soo gudbiyey xafiiska xeeraalinta maxkamadda ee khuseeyay rafcaanle Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, sida dhaawacyo ka muuqda jirka, gacanta nabar ku yaal, xagtimo laabta ah iyo muruxyo kaga yaal bowdyaha iyo jilbaha. maxkamaddu markay aragtay caddaymaha dheeraadka ee uu soo gudbiyey xafiiska xeeraalinta ee khuseeyay rafcaanle Cabdishakuur Maxamed Dige, sida lacagta uu ururiyey iyo qabriga uu diyaariyey, iyo in uu ku yidhi marxuumadda hooyadeed way samirsan tahay, ha la aaso gabadha. halka uu soo bandhigay xafiiska xeeraaliyaha caddayn DNA keliya ee khusaysa rafcaanle Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame. markay u weydiisay maxkamaddu mid dhammaan rafcaanlayaasha ayna ku jawaabeen inaysan gelin dembiga lagu soo oogay, markay aragtay buugga warbixinta DNA-ga sida samballada ay u kala leeyihiin rafcaanlayaasha CCW 12A oo ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo CCW 12B oo ah rafcaanle Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame, ayna iskaga mid noqdeen samballadii la baaray 100% ee koromosoomka Y, sababtana ay ku kala saari waayeen inay isku aabe iyo isku hooyo yihiin, si sahlanna loo kala saari karin, halka CMD 12C uu isagu gooni u qorayo. halkaan ku celiyo markay aragtay buugga warbixinta DNA-ga sida samballada ay u kala leeyihiin rafcaanlayaasha CCW 12A oo ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo CCW 12B oo ah Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame, ayna iskaga mid noqdeen samballadii la baaray 100% koromosoomka Y, sababtuna ay ku sheegeen in ay isku aabe iyo isku hooyo yihiin, si sahlanna loo kala saari karin, halka CMD 12C uu DNA-giisu si gooniya u qoray. markay u caddaatay rafcaanle Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame sida in samballadii laga qaaday ee DNA-ga 100% waafaqsan yahay kuwii laga qaaday marxuumad Caaisha Ilyaas Aadan iyo samballadii kaleba. sidoo kale waxay caddaatay maxkamadda in sawirada la soo bandhigay ee uu inkiray dhammaantood uu leeyahay Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame. markay u caddaatay maxkamadda in Cabdishakuur Maxamed Dige in samballadii laga qaaday DNA-ga 100% waafaqay kuwii laga qaaday marxuumad Caaisha Ilyaas Aadan iyo samballadii kaleba.
sidoo kale waxay caddaatay maxkamaddu in cabdishakuur maxamed dege uu lacag ku ururiyey gabdho si loogu aaso marxuumadda qabrina diyaariyey. markay u caddaatay maxkamadda rafcaanle cabdiraxmaan warsame in sambalada laga qaaday DNA-giisa boqolkiiba boqol waafaqsan yihiin kuwii laga qaaday marxuumadda caashe ilyaas aadan iyo sambaladii kaleba, iyo in uu guriga wax ka deganaa, balse ay sheegeen khubarada baarista sambalada DNA-ga in aan si sahlan loo kala saari karin isaga iyo walaalkii cabdifataax ayna isaga mid yihiin sambalada la qaaday boqolkiiba boqol. markay baaracatay kutubta shareecada islaamka iyo kutubta shareecada islaamka iyo kuwa waafaqsan iyo qawaaniinta waafaqsan shareecada, sidaa darteed maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal waxay soo saartay xukunka. maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal iyadoo xukunkeeda ku salaynaysa shareecada islaamka waxay xukuntay sidan: maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaanlayaasha kala ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige iyo cabdisalaan cabdiraxmaan warsame. maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal sumadiisu tahay MDK Gana 963/2019 iyo oo soo baxay 12 bishii shanaad 2019. اسكن سورة المائدة آية 33 سورة الشورى آية 4 سورة الإسراء آية 33 سورة البقرة بقرة دواتر سداد بقرة دواتر السغال سورة المائدة 45 اسكن كتابك الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلام صفحة سكونتني سديدات إلا بقرة سديدات وقرأ إبراهيم محمد الفائز كتابك نظامك قضاء في شريعة الإسلام صفحة 185 waxaa ka furan cabasho maxkamadda sare 30 cisho gudahood. waxaa ku saxiixan gudoomiyaha aadan maxamed axmed, abubakar cabdinuur jaamac, siciid xasan maxamed iyo maxamed jaamac faarax. wabilaahi tawfiiq. maxkamadduna way noo xiran tahay. xukunkana waxaa qaybinaya kaaliyaha maxkamadda isagoo qof walba ka saxiixaya dhabarka. waa mahadsantii.